صلي النبي بدي عليه الصلاة والسلام استغفار تبدي برواقات كهلي صلاة وذكري بدي نبي صلى الله عليه وسلم عربك ابن آدمك وحاول يوحنا شيء إن وذاكر يهي إلهي حس حداد أركت أديكو ربك حسدي سمود بدينيا قلبك هذا فيه حداد سأركت أديكو تليفونك وهالكن كويست هالكن وأنت الحجاب هوستي سجشته ساتها يصير كلا ساتها يصير كلا ذا كوهيا أو ابن آدم وهذا الكيس هيا ابن آدم هذا الكيسون أديكم كدر جينين أو سيدي هودي وعبية سيدي بيه دي ما يسيدي هودي هذا وعبية أو مالها أمان تودن وشيك شيء أقول قلبي هذا ما في يوبا هالكلمة أنا يقول صعتها قلبي هذا ما في يوبا إنه في يوم على مدى كوباد الوقرته وذكر إلهي سبحانه وتعالى أنا مدهن ربي جيم بايدي سبحانه عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا إله نودركوا إله الرمي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قلبي قوضوا وحوك الدقاء أو كحصلا ذكر إلهي ألا بذكر الله ألا بمعنى اعلموا وتنبهوا وردنا ككعة توصوي ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي ذكر يسي قلوب تكدكتها ذكر إلهي هداد دي سمحا دعايا وحا دعايا ستريس ديبريشن جروين اسكبوق جن انسي وسواس وحان لو جوجي قفكي waxaadun arki uun isaga oo bac kaniini ah wada bac karo kaniini ana xagan ku wada oo kan waa maxay kan waan isku yaraha buuqay oo stresska la igu soo qoray ilaahay caafiyo dadka xanuunsan stresska loo soo qoray kana depressionka loo soo qoray intaadan wax cunin kan qaado intaadan seexanin kan qaado markaad biyo cabta kan qaado markaad maaragtay si seexanaysa kan qaado marka hore lagu kari waayay adoo taagan iyo adoo fadhiyo adoo jiifa inta ilaahay xus wallahi inuusan stress imanaynin wallahi inuusan isku buuq imanaynin wallahi inuusan dib kale imanaynin isha iyo sixirka iyo jinka waa laga yaabaa qofka muuminka inay ku dhacdo allah naga koriye laakiin qofka muuminka ee rabbigii xusaya jirkiisu ilaahay subxaanahu wa ta'ala u fiyoobeynaya qalbiga haduu dagana jirka intiisa kale oo dhan hadda dumar baa tihiin inkastoo kaamara la duubayo laakiin cidda hadalka uu gaaraha ogaado hadalkan hadal dumarka loogu talagalay weey gabdhuhu waxay aad u jecel yihiin inay ilmo dhalaan oo tarmaan inkastoo gabdhaha zabanka joogo aad looga yaabay oo malaynay in gaala lagu dayanayo oo kuleeyihiin anigu inaan wax dhaldhalaba mar raba hadaan dhalana mid iyo laba oo seed walaalay sida u leedahay oo seed adeer sida u leedahay nabiga yiri dhalmada hal la badiyo hal la tarmo warshadii adduunka ugu qaalisanayd baatihiin ibn aadam wuxuu soo saarana ibn ilaahi subhanahu wa ta'ala nicmooyinkiisa ibn aadam ba ugu qaalisan ee jirkaadan inta uu tarmaya hadii aad tiraahdo waxbaan ka ilaalin maxaad siisay muxuu ku tarayaa gabdhaha waxaa la ogaaday ama ugxantoodu ay yar tahay ama ma aratay inay uur yeeshaan ay adag tahay waxyaabaha keena waxyaabahaas waxaa ka mid ah walwalka iyo buuqa keena waxaa lagu ogaaday gabdha gaalaha lagu tijaabiyay marka gabadhu intay rabbigeed ku kalsoon tahay way tarmaysaa haddii mid ilaahay u qadaray anu hadda qadarka ilaahay ka hadli maayo laakiin asbaabtii baan idin sheegay asbaabtuna qadarkay ka mid tahay gabdhaha waxay sameeyeen markii la sheegay la yiri waxba dhali maysid gabdha gaala ma dhalays baa tahay ee shib iska dheh ayay intay Afrika iyo meelaha yimaadeen bay caruur adabti ku sameeyeen caruur bay soo qaateen caruurta markay soo qaateen caruurtii bay ku farxeen markay xoogay farxeen oo gabar caruur la ay noqotay oo walwalkii uu ka baay markii bay uur yeelatay
jalla jalaaluh marka qalbigaadu hadduu degan yahay sakiina iyo xasilooni ay ku jirto waxba waayi mayse alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub nin shaacira wuxuu yidhi wadikru llaahi yajluu kulla hammin can ilqalbi asaliimi cala atawaali dikriga ilaahay wuxuu faydaa kulla hammin walwal kasta wadikru llaahi yajluu kulla hammin buu faydaa can ilqalbi asaliimi buu ka faydaa qalbiga fiyow qalbiga jiran soo ma aha waidaa dukira allahu waxdah ishma'azat quluubu aladiina laa yuuminuuna biاlaakhira waidaa dukira allahu maxaa ku xiga sheekhi ishma'azat quluubu aladiina laa yuuminuuna biاlaakhira waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun qalbiga jiran ee aan ilaahay subxaanahu wa tacaala jeclayn diintiisa aan jeclayn qalbigaa markii ilaahay lasoo hadal qaado wuu qamadhacyoodaa wuu jiriraciyoodaa ma awoodo jin baa ku soo dega ishma'azat quluubu aladiina laa yuuminuuna biاlaakhira kuwaan aakhare rumaysnayn qalbigooda dikriga ilaahay wuu diidaa wuu ka soo karoodaa ma galo laakiin haddii waidaa dukira aladiina min duunihi cidaan ilaahay haddii lasoo hadal qaado idaa hum yastabshiruun waaba faraxsan yihiinba kubad baa laga sheekaynayaa dhag iyo sida qosolka xaflad baa laga sheekaynayaa iyo durbaan iyo waxaan loo joogin waxaa laga sheekaynayaa aroos iyo make up iyo waxaan loo joogin farxadda ka muuqata kaalay aynu subcinnoon qur-aanka akhrinne jin baa ku soo degaya jin leanna qalbigaa jiran 90 daqiiquu bardoodinaya oo mar madaxa lagu dhufan oo mar kelida lagu dhufan dhalinyaradii oo mar oofta lagu dhufan oo mar feeraha lagu dhufan oo uu mararka qaar xubnahooda qaar baa jaba laakiin isma oga waa jinni ku xaqsay ma taqaanaan jinni ku xaqsay jinni baa ku shaqaysanaya markaasuu banooriga maanta oo dhan marna feeraha u dhigi marna teesto ku dhufan marna xaggan mar dhulka ku dhac mar afgamboot u dhac 90 daqiiqa ma daalayo war kaalay 20 daqiiqa juz quraana akhri halkana ay xanuunaysa sidan weeye waa kuursanaya 4 saacadood buu facebooka cala tool toos oon kala go' lahayn xaggan gadi hebel baa ka soo baxay heblaa qosashay hebla kabaha la kormartay heblaa sidan yeelay qosolka iyo dhagdhagta waxaad moodaa dhurwaa neef intuu qashay ku dul dhaylaas ayaad moodaa waa ku faraxsan yahay saa qalbigiisaa jiran wax yar adkaaru noom akhriso 2 ragcadood soo weysayso rabbigaa u tuko haddaad tidhaahdana waxaa weeye waa ashma aha waxaas waxaa ugu wacan waa qalbiga jiran ma fahanteen marka sababtaan qalbiga ooga hadlayo qalbiga haddii maanta aad dhakhtar u tagto oo lagu yidhaahdo wadnahaad wax ka qabtaa wallaahi tol iyo qaraabo iyo xigtiya xigaale intaad isugu yeedho yaa dhihi magaciin jiri cafiya anugu reerka ma dhalanin miyaa halay daaweeyo tabantaaba gacal baan rabaa talow halay daaweeyo yaa dhihi in yar haddii lagugu sheego qalbiga wadnaha wax ka qabta haddii lagu yidhaahdo laakiin haddii lagu yidhaahdo qalbigaada waa jiran yahay rabbigii ma xuso qur-aanka ma akhriyo aayaadka ilaahay kuma tadabburo waxaad moodaa dhagax taabashiya tantooma waa isaga mid dhagax haddaad taabato tidhaahdo abow dhagax see tahay ma fiican tahay ood kareeb u mariso iyo haddaad feer ku dhufato soo isugu mid maaha dhagax taabasho iyo tantoomo waa isugu mid dhagax haddaad taabato ood masaajayso iyo haddaad feer ku dhufato waa isku mid siyaan way cinda taa waxaa la mid a aayadihii qur-aanka ahaa baa nalagu dul akhrinayaa nama diirinayaan maxaa yeelay qalbigeenna yaa ku mashquulsan waxaan waxba ahayn dikriga ilaahay qalbigu hamiga iyo hamiga ka qaadaa laakiin waa qalbigu markuu fiyow yahay can ilqalbi saliimi cala tawaali qalbiga wanaagsan ee fiyow ilaahay buu weheshadaa facebook ma weheshado youtube ma weheshado fanaaniin ma weheshado shayaaiinu اlinsi waاljinni oo yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura ma weheshadee rabbi buu weheshadaa
نورك إلهي بو وهشدا والله مقعيسة شيء ما لكن من شيخة أيان أخذ ميني قريبان دتشيي ميل هوتيلها دتشيي عفوا وحان إلي الشيخ ومركي محاضرة اللقاره أيام كسوق هذه دونا وان كسو داهي حوغي هوتيلكو قراع كلها شيخ مركا وحان دريما إنان عدليي oo hel u baahnaa markaan u imid baa waxaan idhi sheekhow waa sheekhadooda garanaysaa Soomaali caana sheekhow waan ku cidleeyay macdirata naga raalehow wuxuu yiri wallahi haddaad ogaan lahayd sida aan waxaan adduunka ugu jeclahay waa inaan keligay noqdo adduunka waxaan ugu jeclahay inaan keligay noqdo maxaa dhacaya sheekhana rabbigay baan u gaar noqdaa su'aal male oo sifaad male وعرورك قد الأوي يسمله حلقة أنقور النقضة اللهم اجعل اللهم اجعلنا ممن الذين يخشونك في الخلوات إلهي نقدر مركوه ومركا إيقار نقدان ربي قد كبق سبحانه عز وجل الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم استر عيوبنا يا رب العالمين اللهم استر عيوبنا يا رب العالمين عيبتنا الله استر ولا ليال qofka kalena waxa laga yaabaa markuu albaabada soo xidho oo uu kaligiin noqdo inuu wuxuu rabo sameeyo bal wallahi wuxuu hooyadii aabihii kala baqayay bal wuxuu saaxiibtii kala baqayay inuu ku dhaca laga yaabaa yastakhfuna min annaas wala yastakhfuna min Allah dadkay iska qarinayaan إلهينا إسكما قرنيان يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا قرأ يكوى بريسنا يوحسن إلهي رالي كأهين إلهينا علم يسوك كوبي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملائك كراما كاتبين وإلهي كوسو الدري كوارديين نيسا كحشون ربك أن كحشون الربكين أن كحشون ملائك تيسا أن كحشون مركان خلواتك كترنو فسادك يدبك وبهلك ومدى يا أخلاق ضدك مسلمين تأكوهايو نشكو إلى الله إلهي بانو شيغرينا والله إلهي بانو شيغرينا إلهي هل لقبقو قضب كاللباد وان كده هاي مقدمتي إيو قضب بدا هربه قضب كاللباد وحاوي المحافظة على الصلوات الخمس إن شنت الصلاة إلى لسو دائمتو شروط هذا هي أركان هذا هي واجبات كذا هي خشوع هذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قفك هذا الدين تيسينا أوقات دونيسو قفك الدين تيسينا أوقات هذا دونيسو صلاة دي سفيري صلاة دي سوم فيري سو صلاة دكوية ركبة إذن لا دشي ركبة ودحدين ركبة دشين ركبة مارتي وحول بين كدحيان سدو صلاة جماعة كوية هاي فيري صلاة سدو كوية هاي فيري
hadduu yahay qof salaadiisa ka murgaya oo ku faraxsan qofka waa ahlu diin ogow allahuma ajcalna min ahli الsalaa sidaa daraaddeed buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xitaa markuu wax yar walwal yar markuu dareemo kaana yafzacu ila الsalaa xagga salaaduu u ordi jiray nebi moxamed wuxuu odhan jiray sala allahu calayhi wasalam arixnaa biha yaa bilaalow noogu raaxee qofkan kalena waxaa weeye ee laga yaaba inay calaamadaha munaafiqiinta inay usoo dhuunteen waxaa weeye waidaa qaamuu ila الsalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna الnaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila markay salaada u istaagayaan waxaad mooddaa inay 10 foosta gadaal oga xidhanta culays buu dareemayaa waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas dadka istusayaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilaahayna ma xusayaan in yar ma ogiye munaafiqiinta calaamadaha munaafiqiinta marka waxaa weeye salaaddu inay ku cuslayso salaada marka haddii ay kula fududdahay oo qalbigaada ku qaboobayo liannahu soo ma ogdiin salaaddu waa quratu cayni muxamedin sala allahu alayh wasalam waa ilqabowsigii nabiga waa nabigu miduu ku raaxaysan jiray arixnaa biha yaa bilaal miduu odhan jiray wey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam arixnaa biha yaa bilaal noogu raaxee